dowladda Soomaaliya saraakiil ka tirsan ayaa ka hadlay arrinta shidaalka oo muran badan ka dhaxdhalisay baraha bulshada dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah siyaabo kala duwan uga hadleen kiiskan dowladdu waxa ay faahfaahin dheeraad uga bixisay faa'iidada ay ka heli karto iyo shirkadaas iyo sidoo kale sheekooyin kale oo dheeraad waxaan kula wadaagayaa xogtaas adina muuqaalkaas share garay haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada nagu xiran aragtidana qaybta oo sayfaalada nagu reeb aad u maasanta saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo aan la xiriirnay oo mas'uuliyiinta sare ee dowladda xafiisyada kamid ah iyo wasaaradda arrinta shaqada kula ee batroolka iyo xubno kale oo hay'adaha dowladda kamid ah oo wasiir ah ayaa si isku mid ah waxay u sheegeen warka la faafiyay inuu yahay been abuur dowladana ay faahfaahin ka bixi doonto waxay saraakiishan sheegeen in dowladda Soomaaliya 30% ay heli doonto faa'iidada shidaalka 5% ay heli doonaan maamul goboleedka hadba deegaankiisa laga soo saarayo shidaalkaasi taasoo ka dhigan in 35% dalka Soomaaliya oo ku soo laaban doono faa'iidada shidaalkaasi 65%na ay isugu jirto deentii shirkadda ama qarashkii shirkadda ee shidaalka iyo qalabkiisa iyo sahmintiisa maadaama Soomaaliya aysan $1 ku darsanin qarash ayada loo celinayo iyo faa'iidada inta ay isugu jirto saraakiishan waxay xaqiijiyeen 30% lacagtaas inay 25 kamid ay tahay canshuur 5% ay dowladdu saamigeedu yahay 5% oo maamul goboleedka leeyahay shirkadana ay 65% ay qaado doonto laakiin waa ilaa goorma ilaa qarashka ka galay ay soo ceshanayso ay lacagtaas 65% ah qaado doonta haddii ay 6 bilood qarashkaasi lagu helo wixii ka dambeeya markaas saamigu wuxuu noqon doonaa wadaag hantida waxaas kala dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed haddii ay ku noqoto 2 bil haddii ay ku noqoto sanad ama 2 sano ama 5 sano ama 10 sano heshiiskaasi 65% ah oo faa'iidada ay qaadanaysa ah wuxuu ku xiran yahay inta qarashka ka galay oo lala ogaanayo intuu la eg yahay min bilaaw ilaa dhamaad ay ka soo ceshanayso wixii markaas ka dambeeyo waa hantida Soomaalida ilaa haddana waa hanti Soomaaliyeed faa'iidadana markaas dowladda ayaa bannaan doonto ayadana waxbay ku yeelan doontaa ما شاء الله maanta waxaan soo booqday beerta Dar es Salaam waa meel dalxiiska ku fiican cadceedii baan halka ku haynaa biyi bay leedahay cagaarkii xayawaanaadkii baa halka ku nool fardale maxaa ku yiraahdaa kuwa wax cuna hilibka cuna leh xataa aan cagaarka lahayn maxaa ku yiraahdaa libaax leh yaxaas leh dhurwaale waxyaabo badan baa halka yaala marka waa beer runtii anu 7 dal baan dalxiis ku tagay waa la socotaa in la waxsiin ahay maalto waa tagay Dubai waa tagay Dooxa waa tagay Nairobi Istanbul halka meel loo dhigo wallahi ma arkin warkan dowladda saraakiil muhiim ah oo ka tirsan ayaa noo cadeeyay ayada oo dowladii ahna way ka hadli doontaa dhawaan ayay faahfaahin ka bixi doontaa waxa meeshaasi ku burburaya wararkii been abuurka ah oo ay qaar kamid ah dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada iyo warbaahinta dalka Turkiga oo leeyahay nin mucaarada oo mucaaradka waddanka Turkiga ah oo Mareykanka saldhigiisu iyo Mareykanka degan yahay hadda ka hor afgambiga waddankaas isku dayay oo dowladda waddankaas duraya Soomaalida iyo Turkidana tashiish ka dhaxawooraya ayaa warqadahaasi faafiyay si qaldanna waa loo turjumay warkii oo kooban waxa weeye dowladda Soomaaliyeed waxa ay sheegtay in aysan sax ahayn warkii la baahiyay 35% dalka Soomaaliya oo ku soo laaban doono faa'iidada shidaalka 65% ay qaado doonto shirkadaas waa ilaa qarashka ka galay oo dib ugu soo laabanay shidaalka goobaha laga baaro waxa lagu sheegay 3 qayb meel kamida waa dunida dhan meel kamida 50% rajo ah ayaa la qabaa waa 50-50 in lagu khasaaro iyo in lagu faa'iido qaybta labaadna waa 80% in faa'iido ay imaan doonto ama in shidaalkaas la heli doono oo khasaaradu ma badna waa 20% meesha saddexaadna waa 100% ama 200% 5% waa la hubaa in aan lagu khasaareen oo shidaal soo baxay ceelasha hadda la qodayo marka meelaha ugu horeeyay laga baaray waa 100% marna in aan lagu khasaarin taasi waxay dowladdu saraakiisha aan la hadalna ay sheegeen inay fududeyn doonto muddo 3 sano ama 1 sano ama 2 sano ama bilooyin ah in shirkadaasi qarashkii ka galay loo celin doono kadibna dowladda Soomaaliyeed 100% ay qaado doonto faa'iidada wixii shidaalka iyo gaaska dalka Soomaaliya ah oo badda iyo bariga laga soo saarayo shirkadaasna ay saami yar ku yeelan doonto
kusoo dhawow Soomaali Suudanis Specialist Hospital oo ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa isbitaalka ka howlgala 125 dhakhtar oo 30 kamid ah yihiin takhasusi oo aqoon khibrad iyo takhasus u leh daweynta iyo qalliimada casriga kombiyuutarka uur ku jirta CT scan iyo MRI waxa isbitaalka kugu diyaarsan mashiinka kaliyaha lagu dhaqo iyo qalab casri ah oo lagu baaro xididada halbowlayaasha iyo wadnaha laguna furo xididada xirma isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudanis dadka Soomaalida wax badan laga qaato hadda waxba ma hayaanba laakiin in 100% shirkadaas ayada qarashka ay bixin doonto oo billions ah halkii ceel ay ku baxayso wax ka badan 100 milyan oo dollar dawladda Soomaaliyeedna aysan $1 bixinin kaliya ay faa'iido guran doonto waa wax weyn iyo guul dadka Soomaalida soo yeetay qaar kamid ah shacabka Soomaaliya ayaana hambaliyay halka qaarka kalena ay ku jahwareereen wararka been abuurka iyo marin habaabinta ah ee baraha bulshada la soo dhaxdhigay iyo qaar kamid ah warbaahinta dalka Turkiga ay baahiyeen adina waxaan la wadaagtaa aragtidaada sidee u aragtaa dalkii Soomaaliya inuu u talaabsanayo ama u jiheysta dhanka horumarka iyo barwaaqada khayraadka dalka la soo saarayo laga faa'iideysanayo maadaama dunida hadda ay shidaalka ka sii guurayso oo qiiqi laga sii guurayo Soomaalidana hadda ay rabto inay ka faa'iideysto muddadaas aragtida qaybta safaalada noore muuqaalkan aan si shargare haddii aad nagu cusubtaan nagu soo bir aad iyo aad u mahadsantahay